eeyay oo shaqadiisii la arkay waxa uu ku soo noqday sareeye gaas baa loo bedelay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuu dalacay oo kor buu dalacay darajadiisii waa la dalacsiiyay horta ninkaasi aad buu mahadsan yahay wuuna shaqeeyay oo nin waliba dalka iyo dadka wixii uu qabto isaga iskale oo dalka iyo dadku waa hantidii dalka iyo haddii la ka dhigo waxa weeye ummadda wadankeedii weeye kole waxaan isleeyahay bedelku wuu jiri jiray oo isaga waa la bedelay waa la soo bedelay haddana waa la bedelay marka waxaan isleeyahay taasi cillad ma keeni karto ninkaasi nin soo shaqeeyay oo shaqadiisii la arkay waayo mar labaad la soo celiyay haddana mar labaad shaqadii hadda ka baxay oo la bedelay marka ninka kalena waa nin dhalinyar ah oo isaguna daashiisa oo isaguna cusub oo saraakiishii hadda ka hordee isaga ka hooseysay joogay talisyada kale oo ciidamada ay leeyihiin joogay oo ka shaqaynaya oo sargaala loo soo dalacsiyay hadda general loo soo dalacsiyay xoogga dalka waxaan isleeyahay ninkaasna haddii shaqada ku aadan unbuu qabanayaa ninkii kale oo uu bedelayna haddee ninkaasi shaqadu soo qabtayna way muuqataa waana nin muwaadin oo dee dadkuna inay wada shaqeeyaan un ma ahan shaqada ninkii yimaadaba wuu bedelin oo waa bedelaad buu geli waa la soo bedeli waa lasii bedeli sidaas bayna shaqo walba iyo shaqo kasta oo laga hayo wadanba ay isu bedelaysaa oo madaxdiiba isbedelaysaa xasan sheekh maxamuud daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaa maanta igu weynahay saaxiibkay Cumar Cabdi Xasan oo ku takhasusay geeska Afrika iyo xasradaha ka dhaca gaar ahaan Soomaaliya ayaa wareysan doona qodobadeena maanta waxaa kamid noqon doona taliyaha ciidanka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage oo xilka laga qaaday muddo xileedkii ay ka dhiman tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 98 maalmood sababta ku soo beegtay in xilka laga qaado waxaa barnaamijkana kamid noqon doona wasiirka madaxtooyada Somaliland Khadar Xuseen Cabdi oo asagana ka hadlay Soomaaliya iyo Somaliland iyo ayaa kamid noqon doona waxaa kale oo barnaamijkeena kamid noqon doona ku soo qaadan doona taliyaha cusub loo magacaabay ciidamada Soomaaliya ninka la yiraahdo Ibrahim Maxamed Maxamuud waa generaal cusub oo ay waliba ay maanta shirkii maanta madaxtooyada ka dhacay wasiirada ay isugu yimaadeen oo shir gudoominahay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa barnaamijkeena kamid noqon doona ku soo dhawaada Cumarow waxaan maanta waxaan rabnaa inaad nooga sheekayso ama aan war ka weydiino taliyaha Odawa oo xilka maanta laga qaaday sababta oo looga qaaday maxay tahay ayaa isleedahay asagoo uu yahay rugcada oo mar kastaba furimaha dagaalka askariga uusan ahayn uu iska dhigi jirin nin taliya oo askariga gaariga la fuulahayo oo cuntada la cunahayo oo godka la seexanahayo oo mar kasta ciidamada ka warhayo maxaa ku soo beega maanta isla Cumar ku soo dhawow saaxiibo waad mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaaga iyo waraysiga aad iga qaadayso waana soo dhaweynayaa waxaan isleeyahay horta Odawa waa runtaa waa nin soo shaqeeyay waa nin jaralaala waa nin sareeye guuta soo maray waa nin sareeye gaasada waa nin hadda la ka dhigo dhalinyara waa nin shaqeeyay oo si fiican u shaqeeyay oo dhalinyar jeceshahay oo aad loogu farxay markii uu dib u soo hawl galay haddana lagu soo celiyay ciidamada xoogga dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay oo sareeye guuta u magacaabay xasan sheekh maxamuud markii uu haddana xilka la wareegay oo doorashadii ku guuleystay ayaa haddana lagu soo celiyay Odawa oo in laga maarmi waayo loo arkay oo nin dhalinyar ah oo generaal ah oo soo shaqeeyay oo shaqadiisii la arkay waxa uu ku soo noqday sareeye gaas baa loo bedelay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuu dalacay oo kor buu dalacay darajadiisii waa la dalacsiiyay horta ninkaasi aad buu mahadsan yahay wuuna shaqeeyay oo nin waliba dalka iyo dadka wixii uu qabto isaga iskale oo dalka iyo dadku waa hantidii dalka iyo haddii la ka dhigo waxa weeye ummadda wadankeedii weeye kole waxaan isleeyahay bedelku wuu jiri jiray oo isaga waa la bedelay waa la soo bedelay haddana waa la bedelay
marka waxaan isleeyahay taasi cilla ma keeni karto ninkaasi nin soo shaqeeyo shaqadiisii la arkay waayo mar labaad la soo celiyey haddana mar labaad shaqadii hadda ka baxay oo la bedelay marka ninka kalena waa nin dhalinyara oo isaguna daashiisa oo isaguna cusub oo saraakiishii hadda ka hor dee isaga ka hooseysaya joogay talisyada kale oo ciidamada ay leeyihiin joogay oo ka shaqaynaya oo sargaala loo soo dalacsiyey hadda general loo soo dalacsiyey xoogga dalka waxaan isleeyahay ninkaasna haddii shaqada ku aadan unbuu qabanayaa ninkii kale oo uu bedelayna dee ninkaasi shaqadu soo qabtayna way muuqataa waana nin muwaadin oo dee dadkuna inay wada shaqeeyaan un ma ahane shaqada ninkii yimaadaba wuu bedelin oo waa bedelaad buu geli waa lasoo bedeli waa lasii bedeli sidaas bayna shaqo walba iyo shaqo kasta oo laga hayo waddanba ay isu bedelaysaa oo madaxdiiba isbedelaysaa xasan sheekh maxamuud waa soo celiyey odawaa haddana waa bedelay waxa weeye marka waxaan u arkaa inay tahay shaqada waddanka cumarow waxaa keeni baa isleedahay in maanta hadda maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud ay u harsan tahay muddo dhan 98 maalmood keliya ay u harsan tahay xilkii muddaxileedkiisii dabcan maxaa ku soo aadiyay baa isleedahay in xilka laga bedelo ninkan taliyaha ciidanka waa mahadsan tahay waxaa isleeyahay waxaa ku soo aadiyey sida guudba kolkii oo ay siyaasadaha iyo dowladuhu ama waktigoodu dhow yahay ama waktigoodu bilowdo isbedelkaasi wuu dhaca mar walbaba waa gartay oo waxaa laga yaabaa siyaasadii markay ay leena ay jirto election uu jirana waxaa laga yaabaa saraakiil waaweyn in la bedelo in saraakiil kale lasoo bedelo oo cusub shaqada ninku markuu qabtana inuu dad cusub keeno way dhacdaa marka waxaan isleeyahay waa sida caadada ah oo mar walba dhacda inuu sargaalka markii oo shaqada iyo waktiga uu sii dhammaanayana la bedelo marka kalena cusboonaysiin ay timaado lagana yaabo dee dadka wada shaqaynaya isbedelku waxyaabo keeni karana way jiraan ma isleedahay inkastoo hadda wax cilla ah oo aynaan maqal hadda ninkaas hadda maanta hadda cillada oo laleeyahay ninkaas cilladaasaa lagu bedelay waxaan isleeyahay nin muwaadin ah oo soomaaliya oo jenaraal ah oo sarreeye gaas oo ciidamadii soomaaliya ah in la bedelo oo haddana nin kale loo bedelo inuu isagu wax sheegtay baa dhici karta inuu waxaa dhici karta shaqo kale inuu qabsado oo isaga laftiisu jeclaystay marka waxaan isleeyahay wax hadda caqabad ah oo laleeyahay ninka hadda caqabadaasa hadda calaamasu'aal baa saaran oo saasa wax loo bedelay anu maana maqal ilaa hadda ma isleedahay in laga urinayo madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo in laga urinayo oo laga yaabo maadaama hadda ninka xasan sheekh maxamuud cidda keliya ee hadda qoobka ku haysa ay tahay ninka la jiray farmaajo ma la arkaa arrintaas inay calaaqa leh ama lug leh ku leedahay kolley hadda lama sheegahayo wax qarsoon inuu jiro ma ogi oo laleeyahay de macna ninkaasi waa ninkaa generaalka soo saaray oo leenay markii hore nin walba de laga yaabo wixii siyaasadda uu saamayn ku lahaa isagu uu raad ku lahaa in laysu aaneeyo way dhici kartaa laakiin hadda wax soo baxaysa oo xitaa hoos loo sheegayo oo laleeyahay ninka wax sidaas oo kale aanaysi ama kayaaba baa jira maana maqal marka hadda waxaan isleeyahay waa bedel baan isleeyahay ninkaasi oo de generaalkaasi in generaal kale lagu bedelo bay dowladda qorshaysatay baan isleeyahay waayahay inta haddaan kaga baxo ninkaasi generaalka la bedelay waxaa maalmihii ugu dambeysay soomaaliya iyo somaliland caqabada ay jireen caqabadahaas waxaa ka mid ahaa somaliland inay ictiraaf ka heshay dowladda koofiyad yarta arrintaasoo buuq weyn dhalisay oo hawl adag ka dhalisay meeshaasi maanta waxaa hadlay wasiirka madaxtooyada khadar xuseen cabdi oo dowladda soomaaliya u soo jeeday dhaliil gaar ahaan xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa wax oo dhanba u soo jeeday dhaliil oo uu yidhi waxayn ka xun yihiin meesha aan istiraatiijiga aan ku naallo ayay ka xun yihiin waxaa kaloo uu mayg u qaatay xukuumadda soomaaliya mar kastoo ay soo cifanaysa kor soo kacaysaba mid dibindaabinteeda hore uga soo shaqeeya xukunka qabtaa arrintaas maxaad ka leedahay arrinta waxaan ka leeyahay macna ra'yi qof weeye waxaasi cabir fiicanna ma uha arka aniga waxaan isleeyahay israa'iil
ma aqoonsan karto gobol Soomaaliya ay leedahay oo dad Soomaaliyeed oo muslimiin ay joogaan oo ay ku nool yihiin dowladda Soomaaliya gobolka mas'uulka ah oo matasha dadkaana waa dad shaqo ilaashi ku jira shaqadana sida lagu ilaashan karo sidaan ognahayba wadankii Soomaaliya system federalism loo bedelay markay burburkii dhacay oo wadankii dowladdii ay duntay dhexe dadkii isku yaacay waxaa la yidhi waad garan kartaa oo demoqracy ruux hadduu nabar ku dhaco oo dhiig joojin ay noqoto meelo badan baa laga xidhaa hadduu dhiigga la joojin waayo marka dhiig bixi wadanka ku yimid baa in la kala xirxiro oo beelbeel iyo waxyaalo la isu raacay iyo gobol ay noqotay iyaga iyo Puntland baa ugu hordhismay oo Puntland iyo Somaliland baa ugu hordhismay waxaad ku garan kartaa sida wadankani markuu wadanka ka go'ay Soomaalida uu ka tegi lahaa hadduu wadanku Soomaaliya ka go'ay calaamadii bay ka tegi lahaayeen marka calan baan diidnay iyo riwaayad baan samaynay iyo annaga calanka annaga tawxiidku ku qoran yahay iyo kelimada tawxiid dalka islaamka wada calan male laakiin muhiimadana waxa weeye dadkii koofiyadda waxay soo saartay inay haddaad rabtaan ictiraaf weyn calanka aad leediin laga saaray kelimada tawxiidka ay yiraahdeen calanka sheegaya qulubtooda laga saarayo oo islaamka oo dhan baa laga saarayo gaala kristan oo yahuud laga dhigay hadday sida ay sheegayaan ay u noqoto ilaahay idinkiisa maba noqonayso hadee dalkaas annagu dal islaam annagu hadda gaala la siin maayo waanu ku dagaalami aniga kula hadlay ku jahaadi oo aad yahuudinay soo gasho ogolayn oo inta gabadhinaga nooshay baan ogolayn oo Falastiin waxay ku dhacay markhaati ka yihiin Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore ee Somaliland ayaa qaaraan u ururiyay codkiisa duuban yahay oo annagu islaamka la laynayo ee lagu xadgudbayo Falastiin hal aqoonsada buu leeyahay waana garan kartaa oo Soomaalida iyo bayskeedu uu liitaa nin walba shaqo qabto nin kala bedelo ninkii waxa wixii lahayn buu soo qaadanaya wadanku history buu leeyahay dowlad buu lahaa dowladda history bay lahayd dad islaam baa nahay history-gana waa islaamka wixii kale islaamka aan khilaafaynin baa inoo raaci kara wadankan xuduudihiisa la yaqaanaa darisidiisa la yaqaanaa inta dowladan xuduudan leedahay baa la garanayaa wiil yar hadda shaqo la keenay oo shaqada hadda dad iska dhaadhici leh oo intan maamulka iska dhaadhici leh wadankana ma bedeli karo kama hadli karo masiirka diinta kama hadli karo culimadii waaweyneen ee joogtay sharaftan ay wadaagtahay sida ay uga hadleen oo diinta uga hadleen sidoo kale sheekh Ismaaciil Haruun oo kale darajadiisa Allah weyneeyay sidoo kale ninkii sheekh Maxamed Dir ahaa oo kale ninkaas dhulka la soo wadankan ninkaas sheekhaasi sheekh Ismaaciil Haruun ninkaas sheekhaasi aad bay dhulka la dhaceen oo dabcan dadkii adna aadan ay soo tababartay baa burush xaar la daba ordahayay oo dadkii oo dhan ba ku markaa 20 milyan oo Somalilandaysa ayuu ixtiraam waayay bay leeyihiin oo ictiraafka ay heleen buu ka xun yahay oo ka hadlo ka dhiiqeeyay bay leeyihiin hawshaas macadgal heelowdeeda Sheekh Mustafa caalim mufti Soomaaliyeed oo muslimka ah oo waxa weeye adduunka afarta madhaboodba ka jawaabayo oo caalamka oo dhan laga yaqaan weeye islaan xun oo meel taagan oo sakaraad oo iyada lafteedu kristan inay tahay laga yaabo oo nifaaq ku jira iyo nin xun oo sakaraad oo shaqo la keenay oo isagu waxba aaminsanayn iyo dad islaama baan nahay dalku waa dad islaama gobolkan dad islaama ku nool wax la siinayo iyo wax lagu aqoonsanayo midna ma jiro ninkii hore isagana Muuse Biixi ahaa isaguna qol habashi iyo waxyaalo ku xidhay oo 20 mitir baa maxay la siinayo sheekada keenay asal baba niyo total ba wadankan Soomaaliya iskale dad islaama iskale waa lagu jahaadi gaalma imaan karo sayidina Cabdullah Xasan baa ku jahaaday intuu ka shakiyay gaalada iyo Ingiriiska joogay kolkuu arkay dadka inay isku dhow yihiin yaa ku jahaaday oo ka kaxeeyay oo eriyay oo xornimada dhaliyay sayid maxamed Cabdullah Xasan anaga taariikhdiisii iyo gabaygiisii iyo mowqifku ka qaatay baa noo mowqifa shariicada islaamka iyo kitaabka quraanka baa noo mowqifa marxaba marka niyo waxa wax ka jira male sheekh Ismaaciil sharaftiisa Allah weyneeyo sheekh Mustafa sheekh Ismaaciil Haruun baa madaxweynaha islaamka ah waxaan kale oo dhan ee meesha ordahaya ummadii xagee ku ogiin hadda ay diinta ka saarayaan intoodii dambe intii kala baray ku dhamaatay oo magacooda baayo meesha noqolkii la fiiriyo gobolka Soomaaliya ugu dhaqaale yar ee ugu nacfi yar buu ahaa xaqiiqiyeen markay ay sheegayaan yuhuud maxay tahay yuhuud waa Falastiin ka hortaganta iyada ma dhul lahayn oo
aan DNA laga qaadin oo sharciyan lahayn oo okay saddex jinsi oo isku jira oo okay Cumarow inta haddaan kaga ekaano ninkan cusub generaalkan ama generaalkan cusub ee la magacaabay Ibrahim Maxamed Maxamuud ee xilka loo magacaabay ciidamada Soomaaliya ee lagu bedelay Odwaa Yuusuf Raage muxuu soo kordhi karaa isleedahay maadaama dalka Soomaaliya hadda diyaarado cusub ciidamo cusub dowladda Turkiga Sacuudiga maxayga ay gacan siinayaan maxuu bedeli karaa isleedahay oo soo kordhi karaa oo taliyii hore uusan qaban kan uu keeni karaa waxaan isleeyahay horta generaalku waa nin dhalinyara oo raggan hadda dhalinyarta ah weli waxa la aqoon laba jaamacad ka soo leeyahay waa rag aan dawladihii hore la soo shaqaynin oo ragii waqtigii dawladii adashay way raggani waxaan filaynaa isbedel inuu keeni doono la arki doonana shaqadiisa oo hadee waa nin cusub oo hadda ma una joogi jirin halkan oo isaga halkan intii laga bedelay hadda looma soo bedelin waa nin waxa weeye meesha meel ka dambaysa laga soo qaaday oo maanta dalacaad ku yimid waxaan filayaa generaalka cusub inuu dadaal keeni doono isbedel keeni doono nin cusub oo isbedel iyo wax korod u imaanaya inuu yahay oo dawladda lafteeda ay ka dhex aragtay maadaama ninka aqoon-yahanka ahee shahaadooyinka wata ee yahay haddaa la ka dhiga maanta jaamacadaha adduunkuna wuu u baahan yahay oo waxaa loo baahan yahay aqoon-yahan baa loo baahan yahay militariga ka dhisan oo dawladdii iyo maamulkeedii qabta waana meesha ugu sarraysay waana wadnihii waddanka xoogga dalku waxa weeye wadnihii waddanka uu ka shaqaynayo weeye waxa weeye saan filayno waxaan filaynaa dawladdu haddee waxay ka dhex aragtay baa kolley jira nin soo shaqeeyeyna ahaayoo nin hadda maanta laga keenay kor ma aha nin shaqada ka fadhiyey oo la keenayna ma aha generaal maanta nin shaqayn jiray oo sargaal sare ahaa oo wuxuu ahaa maanta meeshan usoo dallacay xagga kale dawladdu qalab badan bay keentay gaadiidka dhulkay keentay gaadiidka cirkay keentay kuwii badday keentay xitaa marka baa la keenay oo badda jooga oo dawladdu way soo kiraysatay iyo way soo gadatay baa laleeyahay niyo madaxweyne xasan aad buu mahadsan yahay anigu runtii madaxweynaha waa la dhacsanahay marka hubaa la keenay oo Azerbaijan ay keentaan maqlay oo dawladda Soomaaliya loo wada in la soo gaatay maxaa war taay ka haysaa ido taasi way dhici kartaa waxaana daliil u ah Azerbaijan warshadihii uu soo maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo maray Azerbaijan wuu tagay taliyaha lugta wuu tagay wasiirka gaashaandhigga wuu tagay taliyaha xoog inuu tagay baan filayaa inta waxa loo tagayay oo sahanka loo galay oo warshadaha loo tagay oo hubka loo tagayay waxay ahayd inay dawladdu ay hub ka soo qaadato oo ka soo gadato dawladaha saaxiibkeeda laguna marti qaaday oo madaxweynaha loo yeeray oo daroonadii iyo qalabkii iyo warshadihii iyo meel walba warshad walba madaxweynuhu tagay taa waxay ka dhigan tahay dee moogtahay reer sahan la'aan ma guuree sahankii dawladdu gashay inay ku yimid bay ka dhigan tahay oo hubka iyo dawladdu ay ku keensatay qalabka dawladdu hubkii kasta iyo gaadiid walba hadda dawladdu way haysataa waxbaa ka bilaaban ciidamadii badda way diyaarsan yihiin ciidamadii cirka way diyaarsan yihiin bayloodadeedu way diyaarsan yihiin gaadiidka cirka waa la diyaariyey bayloodadoodii dawladdan hadda taangi bay haysataa oo waxay haysataa beeb bay haysataa waxay haysataa gaadiidka qafilan ee qaraxu karin bay haysataa tawda waxaa la dhihi karaa daymihii baa laga cafiyey oo dawladdu hadda waxa weeye dawlad intii dawladii nidaam ahayd iyo hay-adaheedii oo dhan baa dib soo kabasha ku jiraan madaxweynuhu inkasta oo dib uu la daala dhacayo dagaal ku jiro oo dadkii xildhibaanada ahaa ee maanta xasaanada haystay ay noqdeen dad warlorisa oo caloosha shaqaystayaala oo loo yaro dad kalowa oo dad lacag intay ku shubtaan waxa ku hadla ay dhahaan oo koolbogosyo iska noqdeen marka haddana waxaan isleeyahay madaxweynuhu uu dhabar adeegay dadkii mana xidhin mana dhibaataynin kolba shaqada u taalla isagoo saa loo hagardaamaynaya buu aad ugu hawlan yahay waana ku mahadsan yahay ilaahayna hala qabto ilaahay ha fududeeyo waxaan la yaabaa rag waddanka wax ka rabo oo le madax baan u tartamaynaaba shaqadii dawladdii mar walba caayaana dhaliilayaan madaxweynihii ay leeyihiin shaqadaan ka bedelaynaabay mar walba dhibaato iyo culays iyo hagardaamo ku hayaan ninkaasi hadduu madaxweyne noqdo
waxa uu maanta khalday isagu ma sixi karaa bal wuxuu soo kordhiya daaye dhibka uu maanta geystay wadanka iyo dadka ma ka xallin karaa isagu okay anigu uma arko madaxweyne ragga uma arko dad xoogsanaya oo muruq maala oo sida kuwa badaylka wata ee guryaha dhisahaya ee dhagaxa jabsanaya oo kala aan arkaa anigu aad iyo aad oo maasan tahay mas'uuliyad iyo la xajaalatoona lahayn maan arkaa anigu dadkaas waad ku maasantahay Cumar ilaha Soomaalida iska qabataan dhiilaha anigu daawadayaal intaas ayaan barnaamijka kusoo koobaynaa saaxiibkay Cumar Cabdi Xasan oo ku